mudanaasha sharafta lana waan salaamayaa runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu sidan quruxda badan leh u dul istaagno wixii ama hagihii kala hagayay muddada 5 sanadood aynu halkan joogno inaynu si degan oo taxadir leh u dul istaagayno waan aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan dhowr qodob dul istaagi doonaa oo isleeyahay mala waxay u baahan yihiin kaabis ama in lagu soo daro xiroosaadka qodobka shanaad farqadiisa koowaad waxay tilmaamaysaa fadhiga ugu horeeya ee qodobku wuxuu ku furmi karaa saddex meelood oo laba meelood ka mid ah waxay isleeyahay farqadaasi waxay si toos ah ugu hor imanaysaa dastuurka qodobka 45 farqadiisa labaad oo tilmaamaysa in fadhiyada goluhu ku furmayaan kala badh in ka badan marka waxay isleeyahay qodobkaasi in halkaa dib looga soo celiyo oo laga dhigo absolute majority sababtu tahay waxay isleeyahay fadhiga ugu horeeya goluhu aad buu xasaasiyad badan yahay haddii la yidhaahdo waxaa lagu furayaa golaha laba meelood saddex meelood waxay keensan kartaa iyadoo guruubada la yahay kolka la arko sida loo qaybsan yahay in golihii uu furmi waayo oo cidda fadhiisanaysa ay noqoto cidda heshay oo keliya 55 xildhibaan marka haddii 720 xildhibaan ay dhinac maraan golahaas wuxuu noqonayaa inuu inoo furmin marka taasi waxay keeni kartaa waan isleeyahay caqabad oo waa in laga saaro oo lagu soo celiyo absolute majority-gii waxa kaloon doonayaa in halkaa qodobka shanaad lagu soo daro maxaa laga yeelayaa oo iyaduna u baahan in la caddeeyo haddii yeedhbadii madaxweynaha iyo kulankii maalinta 45aad goluhu iskii u fadhiisanayay iyo farqadan ay ku soo dareen xubnaheennii inooga soo shaqaynaya guurtida haddii golihii ku furmi waayo oo uu yeedhmada madaxweynaha iyo iskiiba u furmi waayo golihii maxaa la yeelayaa maxaa looga gudbayaa sidee loo xalinayaa waxaa kaloon doonayaa farqadaa iyadana isleeyahay malaa waa muhiim in lagu daro maalinta 45aad ee goluhu kolku madaxweynuhu sodonkiisa ciise ka dhacdo goluhu maalinta 45aad buu iskii u fadhiisanayaa haddii maalinta 45aad ee goluhu iskii u fadhiisanayaa ay ku beeganto maalin qaranku fasax yahay ama iid ay tahay ama maalin qaran oo la xusayo oo eedin may tahay iyadana maxaa lagu xalinayaa yaa awood u leh inuu bedelo oo uu bedelo maalin kale ku haboon ama maalin kale shaqo farqada xubnaheennii 15 ah ee gudoomiyuhu u saaray waxay ku soo kordhiyeen in golaha guurtidu u yeedhi karto anigu raay ahaan waxaan qabaa halkaa golaha guurtida maalinta 45 hadduu goluhu isku iman waayo maadaama laba golo oo shaqo wadaago oo baarlamaan ay isku nahay inayna ku habboonayn ay kaga habboon tahay gudoomiyaha maxkamadda sare in la yiraahdo maadaama uu xusay fadhiga ugu horeeya inuu furayo gudoomiyaha maxkamaddu oo isagu furitaanka leeyahay in isaga laftiisana yeedhmada la siiyo oo aynu halka ku siino qodobka farqada 7aad waxaan isleeyahay habka loo dooranayo gudoomiyaha shirgudoonka loo dooranayo waxa gudoominaya sida xeer hoosaadkeenu imka muujinayo xubinta ugu daada weyn waxa qabaa inay muhiim tahay in la caddeeyo awoodaha uu yeelanayo gudoomiyahaasi ma wuxuu yeelanayaa awoodihii rasmiga ahaa ee speakerka baarlamaanka uu lahaa mise awoodihiisu way xadidan yihiin waxaan qabaa in la taxo awoodaha maalinta iyo waqtigaa yar ee guddoonka la dooranayo ee uu yeelanayo tusaale ahaan ma yeelanayaa xildhibaanku mudanaha gudoomiyuhu inuu mudanaha uu doono uu ka saari karo shirka oo bannaanka dhigi karo waxaan isleeyahay waa mid u baahan in hoos loo yar eego xilliga la codaynayo waynu isla ognahay mudanaha ugu daaweynaynu curfigeena ka dhalatay uu codeeyaa laakiin xeeroosaadkeena inaguma qornaa waxaan isleeyahay waa qasab in xeeroosaadkeena lagu caddeeyo si aynu khilaaf dambe uga badbaadno mudanaha jeergaraynaya ama codaynaya mise ma codaynayo in xeeroosaadkeena inoogu caddaato haddii uu codeeyo oo golihii isla egaado sidii xildhibaan maxamed abi sheegay
oo 41 iyo 41 baa xildhibaanadii noqdaan maxaa lagu kala saarayaa isagana in la siiyo casting vote-kii oo gudoomiyaha markaa shirka jeergaraynaya oo isaguna casting vote yeesho kaasina waa qodobka lixaad waxaan la qabaa saaxiibadeedii iga horeeyay habka kala horeysiinta musharaxiinta waxaan isleeyahay way qoreen laakiin sida u qoreen ma cadda gudoomiyaha iyo ku-xigeen xagga ugu hooseysa ma ka akhriyay gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisu waxa loo kala horeysiinayaa sida ay magacyadoodu u kala horeeyaan ayay noo qoran sida magacyadoodu u kala horeeyaan maxay noqonaysaa ma sida alifaabeed bay noqonaysaa ma sidii liisi commissionku soo gudbiyeen bay noqonaysaa halkan lagu keenay ma waxay noqonaysaa sida xoghayntu ay u qorto oo ay u soo kala horeysiiso marka halka waxay u baahan tahay in la cadeeyo oo waliba alifaabeed lagu cadeeyo alifaabeedka laftiisa waxaynu u baahannahay inaan choice la siinoon gaab halkaa laga bannayne in la caddeeyo la yidhaaha alifaabeedka lagu qoraya waa soomaali oo soomaali lagu kala baxo oo labada mudane ee tartamaya af soomaali magacyadooda loo eego ee aan ingiriisi loo eegin si aan gaabin meesha u iman kaasina halkaasaan taasaan dhigi lahaa qodobka farqadda 15aad isla qodobka 6aad waxaa ku jirtay dhaarta gudoomiyaha marka gudoomiyaha la doorto gudoomiyaha ma loo baahan yahay in la dhaariyo oo dhaar cusub la sameeyo xeeroosaadkeena hore way ku jirtay laakiin guddideen way ka saareen aan waxa qabaa inay muhiim tahay in dhaarta gudoomiyaha dib loo dhaariyo oo isaguna dhaarto waxa kale oo ku dari lahaa dhaarta xogayaha ee gudoomiyuhu dhaarinayo inayna noqonin dhaarta lagu dhaarinayo xubnaha electric ee la doorto ee loogu qoro xeer hoosaadkeenan iyo xeerkan iminka la soo shaqaalaha qaybta shaqaalaha in lagu qoro dhaar waafaqsan shaqadiisa oo lagu dhaariyo dhaar shaqadiisa waafaqsan qodobka 7aad qaab dhismeedka golaha anu waxaan qabaa in laga saaro shirgudoon ereygan shirgudoon sababtu tahay xeer hoosaadkeenan meel alla meel uu shirgudoon awood uu leeyahay iyo shaqo uu qabanayo oo wada jiri ay kaga jirtaa ma jirto marka sababtaa waxaan leeyahay maadaama ay shaqo aynu ku cayimayno halkan ku jirta aanay jirin in laga saaro structure-ka shirgudoon oo loo qoro gudoomiye xogeenka koowaad iyo gudoomiyaha labaad in hab caynkaasa loo qoro qodobka 15aad waxa la qabaa xildhibaanadii iga horeeyay maamuuska xildhibaanka waxay noo damaanad qaaday maamuuska xildhibaanka dastuurkeena qaranka qodobka 49aad faqadiisa 3aad xildhibaanka lama baari karo isla xeer hoosaadkeenna wuxuu noo damaanad qaadayaa qaybta muxuu ahaa qodobka 15aad faqadiisa 3aad waxay noo damaanad qaadaysaa isla xeer hoosaadkan ku qorani inaan xildhibaanka la baari karin marka anu waxaan la qabaa inaan xildhibaanka maadaama gurigiisa gaadhigiisa iyo naftiisa aan la baari karin aan golihii iyo halkii uu ku shaqaynayna aan la odhanin ha lagu baaro oo waxay ku noqonaysaa ceeb xildhibaankii iyo xasaanadii xildhibaankaba taa beddelkeeda si amniga golaha loo sugo waxaan odhan lahaa ha la adkeeyo oo xeer ciqaabeed xeer hoosaadkan aynu ku qoran ciqaab ka dhalan karta mudanaha hub la soo gala golaha maadaama si baaridii looga badbaado waa in la yidhaahdaa haddii mudanaha ay dhacdo inuu hub la soo galo golaha ciqaabtaasaa ka dhalan karta taana in sidaa la yidhaahdo ayaan soo jeedin lahaa xagga saacadaha golaha waxaan la qabaa mudanayaashii iga horreeyey inaan goluhu 8 ilaa 12 duhurnimo inuu shaqeeyo ayna fahayn kolkaynu eegno dee shaqooyinka inoo yaalla markaynu eegno maadaamaaynu inagu waajibinayno xeerar 8 saacadood ku waajibinaya laamihii dawladda inaynu nidhaaho inagu 3 saacadood baynu shaqaynaynaa waxay noqonaysaa bay la tahay unfair waa inaynu inagu iska bilowno marka anu waxaan odhan lahaa halkaa qodobka 8 ilaa 12 in lagu bedelo 8 ilaa 3 galabnimo oo la raaciyo ilaa inta ay shaqa taallo lama rawixi karo ilaa 3 galabnimo oo fakaagan aynu 12 ku rawaxayna meesha laga saaro haddii aan maalinta hadda ajenda inoo oolin 12 ilaa 10 waynu rawaxi karnaa laakiin hadday shaqa taallo waa in lagu caddeeyo inaan ilaa 3 galabnimo oo si aynu 8 saacadood ugu yaraan wax u dhow aynu u dhamaysan karno ilaa 3 galabnimo aynu shaqayn karno
كان وحقا إن تايمكا قضبك حسانة دا حلبانك قضبك شنيتونات فقدت الشناد waxaan qabaa xasaanada xildhibaanka xeer hoosaadkeeni hore wuxuu qorayay in absolute majority laga qaadi karo xasaanada xildhibaanka gudideenu waxay ka soo dhigeen 3 meelood oo 2 meelood in laga qaadi karo taasoo isleeyahay waa unfair oo waxay fogeynaysaa in mudanihii ku xadgudba sharciga ama xeer hoosaadkeena ha ahaato ama dastuurkeena qaranka ha ahaato ama shariicada islaamka ha ahaato in aynu tallaabo ka qaadi kari weyno mudanaha ku kala yiraahdo 55 baa ayaa xasaanadiisa qaadaya waxay noqonaysaa meel aad u fog oo aan laga qaadi karin marka waxaan qabaa si ay fayr u noqoto in la keeno kala badh in ka badan in mudanaha ay ka qaadi karaan xasaanada halkaana taasaan kaga bixilaa qodobka gudiyada waxa qabaa gudida waxbarashada warfaafinta iyo dhalinyarada ee ciyaaraha iyo gudida arrimaha shariicada iyo dhaqanka iyo qoyska in hal gudi la iskaga dhigo oo way isqaadan karaysaa baan qabaa gudidana haddii oo loo bixiyo gudida ama loogu magac daro gudida arrimaha bulshada shariicada dhaqanka iyo qoyska in habka loo qabto waayo waa shaqo si u wada related shariicadii de waa waxbarashadii iyo shariicadii way soo galayaan marka in meel la isku geyn karo ayaan soo jeedinayaa qodobka 67 golaha wakiiladu wuxuu ansixinayaa ama dheereyn karaa xaaladaha degdega ee waafaqsan dastuurka anigu waxaan qabaa qodobkaasi waa awood aanu golaha wakiiladu lahayn maadaama xaaladaha degdega ah aynaan inagu awood gaar ah u lahayn inaynu ama yarayno ama qaadno ama waajibino oo golaha inala leeyahay golaha guurtido oo inagoo baarlamaan oo kaliya uun aynu baarlamaanka wada fadhiya uun ay ama wax ka bedel ama soo waajibin keeni karaan xeerka degdega waxaan qabaa in qodobka meesha laga saaro oo aanu hayn in halkan la keeno waayo qodobka 8 dastuurkeenu wuxuu leeyahay xaaladaha degdega waxa lagu waajibin karaa uun baarlamaanka wada fadhiya baarlamaankina waa labadii gole kana halkaas aan kaga baxayaa qodobka wax ka bedelka xeerka qodobka wax ka bedelka xeerka waxaan qabaa laba farqadood baa ku jira farqada koowaad iyo farqada afraad waxaan qabaa labada farqadood waxaad yar moodaa in awooddoodii ayna si cad u qeexnayn oo awoodii si loo siiyey awoodda waxa la yidhi waxa qaadi kara uun golaha joogtada ayaa keeni kara kan kalena hadda waxa la yidhi 1/3 baa keeni kara marka labadaa in la mideeyo oo hal qodobka koowaad laga wada dhigo oo loo qoro wax ka bedelka xeer hoosaadka waxa soo jeedin kara gudida joogtada ah ee golaha wakiilada ama 1/3 saddex meelood oo 2 meelood tirada guud ee golaha in habka la isku raaciyo نظامية خلاف كنا إنه حلي كرو حبلو حلي كرو خلافات كلها كده حد عكرة خلافات كليال كلا يقوله إنه كده حد عكرة إن لا إنه كأنه حبلو مر كرو وحكلون راعي لها هالكا إن لسوق اليوم حب خلافات كنا نظام أي كلها بورتدو أي ويرانا يسوع حب خلافات كنا كلنا يسوي حلينا يسوع aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ku soo koobayaa intaas oo ku soo koobaya wasalaamtii wasalaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh